allaha u naxariistee waxaa maanta ay taariikhdu tahay 10ka bisha shanaad sanadka 2019 oo maalin jimcaha ku geeriyooday cisbitaalka internationalka ee magaalada Hargeysa marxuun xildhibaan xaaji Cabdikariin Xuseen Yuusuf Cabdiwaraabe oo kamid ahaa mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland. geerida marxuun xaaji Cabdikariin Cabdiwaraabe ayaa waxa xaqiijiyay qaar kamid ah eheladiisa. allaha u naxariistee marxuun xildhibaan Cabdikariin Xuseen Yuusuf Cabdiwaraabe ayaa mudooyinka u dambeeyay u jiifay xaalad caafimaad magaalada Hargeysa. allaha u naxariistee marxuun xildhibaan Cabdikariin Xuseen Yuusuf Cabdiwaraabe ayaa waxa uu kamid ahaa xubnihii lagu aasaasay golaha guurtida Soomaaliland isagoo ahaa mudanihii ugu daada weyna golahaasi. allaha u naxariistee marxuun xildhibaan xaaji Cabdikariin Cabdiwaraabe oo ahaa samatalis ayaa waxa uu door muhiim ah ka soo qaatay nabadayntii iyo dib u heshiisiintii beelaha Soomaaliland waxaana ku suntanaa dib u dhiskii dhismaha dawladnimada iyo xasilinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland. marxuun xildhibaan xaaji Cabdikariin Xuseen Yuusuf Cabdiwaraabe oo caan ka ahaa guud ahaan geyiga ay Soomaalidu degto gaar ahaan Soomaaliland ayaa da'diisa lagu qiyaasaa 126 sano isaga oo koonfurta miyiga magaalada Hargeysa ku dhashay dabayaaqadii qarnigii 19aad ilaa bilowgii qarnigii 20aad. marxuun xildhibaan xaaji Cabdikariin Xuseen Yuusuf Cabdiwaraabe ayaa sanadkii 2015 madal dad badan kulmisay ka sheegay inuu da ahaan jiro 122 sano. allaha u naxariistee marxuun xildhibaan xaaji Cabdikariin Yuusuf Cabdiwaraabe ayaa 1940 loo doortay caaqilnimo beeshiisa. allaha u naxariistee marxuun xildhibaan xaaji Cabdikariin Xuseen Yuusuf Cabdiwaraabe ayaa intii uu noolaa sheegay inuu la soo shaqeeyay madaxdii kala duwaneed ee soo martay Soomaaliya ee ugu horeeyeen Aadan Cabdulla Cismaan, Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Maxamed Siyaad Barre, iyo sidoo kale madaxdii kala duwaneed ee soo martay jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay kamid ahaayeen Cabdiraxmaan Tuur, Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, Daahir Yaala Kaahin, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo Muuse Biixi Cabdi. allaha u naxariistee marxuun xildhibaan xaaji Cabdikariin Xuseen Yuusuf Cabdiwaraabe ayaa sidoo kale soo noqday gudoomiyihii golaha guurtida Soomaaliland. allaha u naxariistee marxuun xildhibaan xaaji Cabdikariin Xuseen Yuusuf Cabdiwaraabe ayaa waxa uu guursaday 3 dumar waxaana guud ahaan dhalay 29 ubada. maxamed Jiciir Axmed, wararka warbaahinta Hormuud, magaalada Hargeysa.